والدنا وإياها، شيخنا وإياها، معلمنا وإياها، صاحبنا وإياها، ناصحنا وإياها، قريبنا وإياها، إلا هو نور شيء. يقول أبين هراء حمودو حندوني حنكوري شيخ مركو تجي مال خطر بدن با شيخ تكتي وكسي خطر بدن تنينو دقن هاي مقدشدي شيخ بلاد وفيتشنو وإسئلالي نفط إلهي باوك لكن انت تحدري كرتو حيونا نوين بان هدا هيش محمودو نفتيدا وان قرشيي مراد كملي هذا كيغو آخر سيغي مراد كملي مركا أرنتا اسمال بان اسكا ديغي خير بان هاد كان ويمي ندوال ايغو ياري انكا قيب قادانا يا طبعا عشان شوغا يا دنبه دي انو مراد كملي ما انت صنولان لا وان صنولادي عمري النبي وكل انتين وان شوغا مركا مراد كملي ويقصوا عليا وحيري مالني ماذي وحان ربا إنان بلابو كتابك اللي يراهدو الداء والدواء ابن القيم وليه مختصر كيسا إنان بلابان ربايو يقعد صديم قولاداس ودادة ميشة شوغا وح شرحه وكتابكو وليه هداد هايسو بليسو الرادي ميد أمام انترنت كا إيغا بعد أما هداد هايسو مكتبات دادا إيغا إيك وح اندوبانا عط أموياني وح كالوان كواي بيغير ميد فوائدو أن هيي مركي PDF أنكو هيي إلا شنبولي حوغا تقريبا بانو درع وان أخرين يا بيغير إن شاء الله حنكوير الشيخ مركات كتابك بلوضو أو نميس ميموري إن شاء الله انت ترعدها لغو شبو منطقات دي ومدى كفائيديسي هرئينا وسوقات وايه بيغير ساكي وان وضع هذا اللي مركان سوري سني أعودي إيو أسكوري سني كتابدي إيو دروستي وحي مركان أخرني دميان وشيغي وحي يقول إن شاء الله وانسون نقون يادن درسي قاعد دميو يعني من أيام كتبت إيو دروست هاتشوشينينا هلا وضو كتاب كالي ودور هدي الله يدمو أساسين يسكوكنا مركا الشخص آدو علوس باين قبح إشو وإلمينيسا قلبي ومرغونيا وحان إلهي رالك أهين قرنوين إنا لله وإنا إليه راجعون وحان ليه دعاء يا دلنيرada نما ku hadhay ba hawli haysa khayr baan u rajeynaa isagoo salaadii duhur ka baxay kitaabkii akhriyay xalqadii ka soo duceeyay soo socday waysa qaba ajash utim khayr ma u rajeynaa waxaan rajeynaa khayr qabla al-maghrib shanti iyo dhowr iyo soddon هي عيدي قدام بيتي اللي قلت له ميتك شنتي هي كنت النوال لقى صوت درير حانو رجينا يا خيرات وبضن والنبي يقول عليه الصلاة والسلام قفك فاجر كأمرك بنته يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب وحا كرا حيسته ضدك iyo dunyada iyo deegaanka iyo dalku waa ka raaxaystaa
laakiin qofka muuminka markuu dhinto isagaa wuxuu ka raaxaysanayaa adduunyada dhibaatadeedii iyo arrinkeedii ayuu ka raaxaysanayaa. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ka raaxaystay caawa, inuu ka raaxaystay waan rajaynaynaa, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkii cimrigiisa uu ku dhammaystay uu u waday. waqti iyo taariikh dheer baan soo wada marnay, waa ka sheekayn doonnaa iyadoo xalaqaad ah haddii alla idmo. waxaan isleeyahay dad badan bay anfici doontaa haddii laga sheekeeyo insha allah. tafsiirka markuu joojiyey sheekhu safrayey buu ii yeedhay, waa kulannay, gurigiisaan ku kulannay. wuxuu yidhi sheekh waxaan rabaa, waa joojiyey tafsiirkii, waxaana u joojiyey waalidkii oo gaboobay oo da'ah inaan ku dhowaadaan rabaa, maadaama halkan aanan keeni karin. marka halkaasaan waxaan rabaa inaan wax badan ilaahay kaga helo subxaanahu wa tacaala. waa isa sii waraysannay, wakhtiga hadda iska kooban. insha allahu waa ka warrami doonnaa taariikh dheer oo la soo maray, oo u badan inta badan wixii mubaashiro aniga isagana dhex maray ama talo ah ama wax badan ah aan isleeyahay dadku way anfici doonaan baan ka sheekayn doonnaa. sheekha gacanka xaqdaran baa dishay, gacantii ambiyada iyo rususha iyo ducaadda iyo culimada iyo dadka leyn jirtay baa dishay. waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadeenna inuu aqbalay. ummadda soomaaliyeed meelay joogaan inay u duceeyaan baan ka codsanaya, dal iyo dibad, rag iyo dumar, dhallinyaro iyo waayeel, saqiir iyo kabiir, inay idinaan ducada ka ilaawin. intaasoo maanta marti inooga yahay. waqti iyo cimri iyo cilmi wax badan buu ina geliyey. soomaali iyo ummadoo dhan mandiqadanba ha u sii badnaato. waxaan rajaynayaa mu'asasaad khayriya inaynu u samayno, waynu ku magacaabno mu'asasatu sheekh cabdinaasir, oo cilmigiisii oo aynu ku faafinno oo awqaaf ah inaynu samayno oo raadkaan noolayno. codsigaana ummadda waa u soo jeedinayaa, ganacsatadeeda, qurba joogteeda, guda joogteeda, dhallinyaradeeda iyo intuu abaalka sida gaarkaa ugu lahaa intaba oo soo jeedinayaa in xil weyn layska saaro, mu'asaso dhaxalkii uu ka tegey ummadda lagu gaadhsiiyo, jiilba jiil uu dhaxlo, sida culimmada islaamku ardaydoodii iyo culimmadii ka dambaysay ay wadaan. waxaynu fadhinaa caawa meeshii uu kitaabka ilaahay dhowr jeer ku dhammeeyey oo ku akhriyey, masaajidka jaamacaynu fadhinaa. waxaynu caawa joognaa meeshii janaasadiisa haddana aynu ku tukannay aynu joognaa. waxaan rajaynaynaa niyaddii wanaagsanayd uu qabay inuu ilaahay kula kulmay. nin walowba niyaddaada wanaagsan ee ikhlaaska ah iyo camalka saalixe aad samaynayso isaga unbaad huran tahay oo ilaahay kuugu khatimi doonaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa sheekha dembigiisii alla inuu dhaafo, ilaahay dembigiisa hore inuu u dhaafo, dembigiisii dambena alla inuu dhaafo, kii u xusuusto iyo kii uu ilaawaba ilaahay ha u dhaafo. sida marada cad ilaahay uskaga uga nadiifiyey dunuubta allah uga nadiifiye. dilka uu dhintay sheekhu la dilay ilaahay inuu shahaado uga dhigo baan ilaahay uga baryaynaa. ilaahay inuu shahaado uga dhigaan allah uga baryaynaa. su'aasha ilaahay inuu ku sugaan allah u baryaynaa. qabriga allah inuu u nuura ilaahay uga baryaynaa. qabriga ilaahay inuu waasiciyaan allah uga baryaynaa biasmaa'i alxusnaa wa sifaatihi alculaa. beer jannaad inuu ilaahay uga dhigo qabriga baan ilaahay uga baryaynaa. ilaahay ducadeenna inuu aqbalaan ka baryaynaa. qalbigeenna waa ogyahay ilaahay ducada allah u aqbalo.